aad nagala socotaan halkan waa wararka TV qodobadayna wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah al-sunna oo jawaab kulul ka bixisay eedeyntii General Aadan Laba Afle wararkii ugu dambeeyay safarka ra'iisul wasaare Roble Dhuusamareeb madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo u safray Garowe ujeedkiisuna yahay ku soo dhawaada wararkaas iyo warar la mid ah madaxda siyaasadda ahlu sunna oo wareysi BBC ayaa ka hadlay eedeyntii uu General Aadan Abshir Nuur Laba Afle u jeediyay hoggaanka sare ee ahlu sunna kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii soo socday Cabdisalaan Aadan Xuseen ayaa markii horeba beeniyay in ahlu sunna war jamiica ay diiday wadahadaladii socday wuxuuna tilmaamay in mar walba ay diyaar u yihiin in miiska lagu dhameeyo tabashada ay qabaan iyo xiisada haatan ka taagan maamulka Galmudug sidoo kale wuxuu tilmaamay in Laba Afle uu ugu goodiyay in ahlu sunna la baabi'in doono ama ay iskaga tagaan deegaanka Bohol sida uu hadalka u dhigay madaxda siyaasadda ahlu sunna oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Galmudug aysan diyaar u ahayn in lagu wada hadlo tabashada jiro si xal lagu helo wuxuuna intaasi ku daray in haatan ee ahlu sunna 15 kilomitir ay u jirto caasimada Dhuusamareeb ee maamulkaas General Laba Afle wuxuu ahaa nin aysan jirin cid soo dirsatay oo wasiir ka tirsan Galmudug ayaa hore u cadeeyay hadalkan madaxda Galmudug wada hadal ma rabaan anagu in aan nabad rabno waxay cadeyn ku ah in ahlu sunna oo 15 kilomitir u jirto caasimada ayna ka warsugayaan culimadii iyo ganacsatadii dhadhaxaadinta waday ayuu yiri waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay in hadalka ka soo yeeray General Laba Afle oo ka mid ah saraakiisha xoogga dalka in uu ugu sii darayo xaaladda adag ee ka taagan maamul goboleedka Galmudug loona baahan yahay in xaaladda la sii kicin ama la sii abaabulin dhiig dambe oo daato si kastaba hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo oo shalay General Aadan Abshir Nuur Laba Afle oo shir jiraa'id qabtay uu shaaca ka qaaday in uu gacanta ka taagtay wadahadaladii uu waday isagoo oo uu eedeyn dusha ka saaray ahlu sunna wal jamiica uuna ku tilmaamay inay diidan yihiin in wadahadalka miiska markii ugu dambeeyay safarka ra'iisul wasaare Roble ee Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowladda goboleedka Galmudug Roble ayaa safarkiisa wuxuu uu la xiriiraa hubinta howlaha qabsoomida doorashada golaha shacabka gaar ahaan xubnaha ka imaanaya dowladda goboleedka Galmudug qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa haatan laga dareemayaa caasimada Dhuusamareeb iyadoo aad loo adkeynayo amniga guud ahaan degmadaas wararka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha markuu uu tago kulamo gaar ah la qaadan doono hoggaanka sare ee Galmudug isagoo kala hadli doono doorashooyinka dalka sidoo kale waxaa la filayaa in kulanka lagu soo qaado xiisada u dhaxaysa ahlu sunna iyo Galmudug oo weli ka taagan duuleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud safarka Roble ee Dhuusamareeb ayaa bilow u ah socdaal kala duwan oo uu ku bixin doono xarumaha maamul goboleedyada isagoo oo uu kuurgalayo doorashooyinka 21 si kastaba socdaalka Roble ayaa ku soo aadaya iyadoo oo 2 maalin ka hor Galmudug ay soo gabagabaysay kuraasta ugu harsaneed xubnaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Madoobe ayaa goordhow ka soo kicitimay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo isagoo oo ku sii jeeda dhinaca magaalada Garowe Axmed Madoobe ayaa waxa garoonka Kismaayo ku soo sugootiyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ujeedka safarka Axmed Madoobe ayaa lala xiriirinayaa kulan uu la leeyahay dhigiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sida inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay sidoo kale
wararka ayaa intaasi kusii daraya in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan arrimo doorashooyin gaar ahaan tan golaha shacabka oo muhiim u ah doorashada soo socota madaxweynaha oo si weyn lagu tartamayo qaybna ay ka yihiin maamulada. madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale inta uu joogo Garowe kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda kale ee Puntland isaga oo kala hadli doona iskaashiga labada maamul. Dani iyo Axmed Madoobe ayaa saaxiibo siyaasadeed oo sida aad iskugu dhow isla markaana xulufnimadooda sii xoojinaya tan iyo markii ay soo bilaabatay doorashada. Si kastaba, kulanka labada hogaamiye Jubbaland iyo Puntland ayaa mid xasaasi ah isla markaana isha lagu wada hayaa, wuxuuna ku soo aaday xilli xasaasi ah oo la bilaabay doorashada golaha shacabka oo ka duwan midii soo idlaatay ee golaha aqalka sare.